dowladda dalka Ingiriiska ayaa gelisay dalka bando dadban kadib markii kiisas cusub oo laga helay dad fara badan oo soo ritay cudurka caabuqa coronavirus-ka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Mr Boris Johnson iyo waaxda caafimaadka mare ay soo rogeen ayaa waxay ku sheegeen in laga bilaabo maalinta Khamiista maqaayadaha, goobaha lagu shaaxiyo iyo kuwa lagu caaweeyo lagu soo rogay in la xiro 10 fiidnimo. Durba arrintan waxa ay saameyn ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed milkiilayaasha maqaayadaha dalka Ingiriiska. Halkan aan joogno waa maqaayada Savannah Restaurant Shepherd Bush ee magaalada London. aan ilinkeeda sii gelayo waxay ahayd maqaayad aad u mashquul badan, balse xilligan aan galayay waxa ay ka duwaneed xilliyadii hore. waxaan kula kulmay dad aad u yar kuwaasoo ii sheegay in waqti hore ay yimaadeen, iyagoo ii sheegay in caawa ay ku eg tahay maqaayadda 10 fiidnimo. Caaisha oo ka mid a dadkii macaamiisha kana cunteynayay goobta ayaa inoo sharaxaysa saameynta uu ku yeeshay sharcigan cusub ee la soo rogay. waxaan u sheegi lahaa dee waa inaga safetygeena inaynu is ilaalino, aynu sharciga u hogaansanaana inaga inoo fiican tahay iyo faamilyadeena. marka dee wixii lainidhi waa inaynu samayno, soomaali haddaynu nahay waxaanu jecel inaynu isku tagno. sharci ma dhegaysano runtii, laakiin waynaynu dhegaysanaa. waxa ku xidhan ammaankeena ku xidhan caruurteena iyo faamiligeena inaynu safe garayno oo inaan sidaynu isugu iman jirno isugu imanin. sidoo kale Dr Axmed ayaa isna fariin u diray ummadda Soomaaliyeed, sheegayna inay ilaaliyaan cudurkan, afkan ay xirtaan. marka anigu fikirkaygu aniga waxa weeye macluumaadka iyo talooyinka iyo nasiixada ay bixinayaan hay-adaha iyo aqoon-yahanka caafimaadka, mas-uuliyiin hadday yihiin iyo hadday aqoon-yahan yihiinba ee khibradda u leh arrimaha noocan oo kale ah in la dhegaysto oo la qaato la maqlo ayaan anu ku talinaya. bulshadu inay tawjiihaadka iyo adviceska iyo talooyinka la siinayo ay qaataan waxay keenaysaa in ay taxadar aynu yeelano, in dadka dhimanaya la yareeyo, in muxuu ahaa dhibaatada aad loo yareeyo, in faafinta cudurkana awood loo helo lagu xakameeyo. agaasimaha Cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeennada Savannah Restaurant ayaa noo sharaxaya saameynta uu ku yeeshay sharcigan cusub. waxaan sheegaynaa macaamiisha iyaga in uu maqaayaddu aan furayno ilaa ay furnaan doonto laga soo bilaabo 12 midday oo 12 duhurnimo ah ilaa 10 o'clockna albaabka aan u xiri doono. waa ka xunaa runtii, waa amar ilaahay oo dhacay oo ma arkino bulshada waddankan oo dhan ay dabcan saameyntaasu ay nala qabto. dabcan wixii isbedel ahna waa idina socodsiin doonaa, laakiin anagoo raacayna talooyinka ugu dambeeya ka soo baxay. Axmed Naaji Sacad oo ah fanaan Soomaaliyeed ayaa fariin u diray qurba joogta Soomaaliyeed inaysan yareysanin cudurkan caabuqa ee soo cusboonaaday. qurba joogta oo anaga London baan joogaa hadda oo nala joogo yani dalkan Ingiriiska, waxaan leeyahay waa inay nidaamka raacaan. hadba wixii dowladda Ingiriiska soo amarta dadkaana soo dhaweeyeen iyo waxaan cudurkan socdo waa inay u hogaansanaadaan wixii amar ka soo baxo. marka waa inay walaalaheena qurba joogta waa inay nidaamka raacaan, yaa sanka ay xirtaan, markasta gacmaha iska dhaqaan. iyagana inay yani waxaan ugu ducayn ilaahay ayagana cudurkan ilaahay inuu ka badbaadiyo. ayagana nidaamkii hadba wixii soo kordha inay walaalaheena raacaan nidaamka ayaan saasaan ugu jeedinayaa. sidoo kale marka ummadda waxaan kula talinayaa mar walba inay raacaan qawaaniinta loo soo jeedinayo dowladda Ingiriisku soo jeedinayso si ilaahayna inooga badbaadiya xanuunka, ummadduna ay iswada farto. marka aad baan ugu mahadnaqayaa TV-ga dalsan oo maanta soo booqday Savannah. si kastaba ha ahaatee cudurka COVID-19 dadka uu soo ritay ayaa lagu sheegay 6,634 maanta keliya, siday shaacisay madaxa caafimaadka Yvonne Doye. Cabduqaadir Mukhtaar, Dalsan TV, magaalada London.